Dambe baarista dalka Kenya DCI-da ayaa qoraal ay saacado kahor soo dhigtay barteeda rasmiga ah ee Twitter-ka ku sheegtay in la filayo in maxkamadda la soo taago laba eedeysanayaal oo loo haysto ka ganacsiga daroogada. Shakhsiyaadkani ayaa gacanta lagu dhigay gelinkii dambe ee shalay galab xilli ay adeegsanayeen baabuur sida nooca daroogada ee loo yaqaan xashiishka oo marayay degmada Hadaado ee hoos tagta ismaamulka Wajir. Daroogada ay ciidamadu qabteen ayaa lagu sheegay 93 xirmo oo xashiish ah. Sidoo kale waaxda DCI-da ayaa magacyada eedeysanayaasha ku kala sheegtay Maxamed Culo oo ah darawalka baabuurka iyo Ibrahim Burji. Eedeysanayaasha oo ay da'doodu u dhaxayso qiyaastii 41 jir ilaa 26 sano jir. Wararka ayaa intaa ku daray in ciidamada ammaanka ay ka shakiyeen baabuurka oo la sheegay inuu siday shamiito balse daroogo uu gudbinayay. Baaritaan dheer kadib ayay ciidamadu ogaadeen in daroogada uu gaariga siday ay tahay 465 kiilogaraam. Ugu dambeyntii, labada tuhmane ayaa hadda ku jira saldhigga booliska waxaana la filayaa in marka baaritaanada la soo gabagabeeyo ay maxkamadda go'aan ka qaadan doonto xukunkooda. Dacwada ku aadan ka ganacsiga maandooriyaha waxaana aad uga soo badanaya deegaanada waqooyi bari Kenya ka ganacsiga daroogada. Abdiraxmaan Atore, 5TV, Nairobi.